وقلت waxay ku leeyihiin naag gar la qabto male ganfuur la jabshay leedahay subhanallah gar la qabto male ganfuur la jabshay leedahay anaga dhaqankeena ma aha dadna waxa dhaqan u ah tumo mataqaano wala tutuga tumo mataqaano wala tutuga yani mala tutume wala iska barbarya wala tutuga le marka waxaan usu dardaarmaynaa mar walba tumo mataqaano hal iska tutuga le qaabkaasayti inaga ha loo dhaqo qaabkaas in loola muaamaloodo waa sida ilaahi uu na amray wa aashiruhunna bil ma'ruf Soomaalida qaar waxay yiraahdaan haka ilmayso ka ilmay maxaa laga wadaa haka uu hiso adiga laakiin ka dhal oo ka ilmay ka ilma dhal yani naag waxa waaye farqalocana laga abuuray waxay u baahan tahay in loo dulqaato loo sabro marka ninka waxaan u dardaarmayaa xuquuqda ay ku leedahay naagtiisa inuu ilaaliyo gabadhana sidoo kale xuquuqda ninkeedii ay ku leeyahay inay ilaaliso labada dhinac hadii xuquuqda la kala ilaaliyo reerkaas reer barkoobay ayuu noqonayaa marka labada dhinacba waashiruhunna bil ma'ruf ayaan ku ognahay intaasay Allah nagu anfaco wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in دعاء شيء نو دعاء شيء والدي تأسيس دعاء ما حاجة والدي تدعي من فضل